telling the truth. Oh my God. Oh wow. You were asked to السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير شرفت لكم سود هذا العدانة channel عدانة الجوج جرتوا كم أصنتها هدا كعصبتها فضلا سبسكرايب لايك شير كومنت انتبهوا إنه دير قليل وولا لكينا عفتها على العدالة مرة بعد يدين صلابتي بريان دم ولا كل مشغول رمضان وسود ويا إلى خير كيس أنا وافجيو كل جيل بقى لما أصحابته يقول حرم حلية هاي كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم إن شاء الله. مدوين كان واكل مخنين ومدوين كان وحنا أركب برنامج ما أنتوا حايدين وضع برنامج إيجابي. برنامج كانوا حالي هذا DNA test وحلوه كل صار يا دات إسقابو أما دات إسقابين وعرور إسكول لين عرور تود إسكو إنكرين كانوا حينو بلاونا برنامج كي DNA test ما أنت برنامج كو حمرتكوا ويل يهويديس يا أبيس وويل حبرت له شيء يا أبيه دلي وجبر كو عند عونيسو لما متانا وحاجة دلي أضيق وين ميتك كلا وحاجة دلي جبر كو عند عونيسو أبيه لما ريركا أيه إلى جيفتي وجوجل لاف أيه إلى سميه أبينو إنكرسينه كل برنامج كبيرين هردعي الله تعالى. Are denying my twins. They're convinced that Rashiki's dad, Tyrone, is the father. But I know for a fact that he's not. I loved Rashiki and we were engaged to be married. And his mother Denise took me in. gabadha waxay ku andacoonaysaa waxay leedahay wiilka aabiis waxa la yiraahdaa Tyrone waa odayga gadaal joogo backstage-ka barnaamijka ma ka soo qayb galay gadaal ay ka sheegi doonaan sababta uu soo qayb galay. gabadhu waxay leedahay aabihii weynaa ee guriga boyfriendkayga aabihiisa ayaa aniga ila jiiftay asagana wuu dafiraya wuu inkiraya wuxuu leeyahay aniga qoftan weligay lama jiifan ma arag. mid labaad wiilka wuxuu taagan yahay mid labaad waxay taagan tahay labada caruur aan dhalay ee mataamaha ah waxa iga dhalay boyfriendkayga asagana wuu inkirsan yahay. habartii waxay la jirtaa wiilkeedii iyo ninkeedii oo waa dafirsan tahay ilmahan way diidan tahay batatan ma isoo galaan taagin. I had nowhere else to go. The day after I moved in with them, I did something I was not proud of. I had sex with Rashiki's dad, Tyrone. But the only reason why I slept with him was because he pressured me to do it. I would have had nowhere to go. I would have been homeless. gabadhu waxay taagantahay waxa la jiiftay Rakishi aabiis Rakishi waxa la yiraahdaa wiilka boyfriendkeeda ayada aabiis Tyrone la yiraahdaa waxay tiri waxaan la jiiftay oo Google Live aan la sameeyay boyfriendkeega aabiisa sababtoo ah asaga ayaa pressure isaaray ama igu qasbay in arintaas aan sameeyo haddii kale aniga waxaan ku laaban lahayd tiri homeless waxa la yiraahdaa wadooyinka dadkan guryaha lahayn oo bad credit iyo balaay iyo dagaal waxaan ta galeen shaqooyinkeedii guryihii laga soo buriyay kulli Mareykanka waxa laga yiraahdaa homeless dadka wadooyinka isaga nool Soomaalina waxay dhahdaa dadka masaakiinta wadada ku nool ama koolista ha ahaado ama alkoolista waxa doonto ugu yar. Again, Denise thinks my kids look just like Tyrone, but my son looks just like Rashiki and my little girl looks just like Denise. Denise is a sorry excuse of a woman and an even worse mother. She is brainwashing her son into thinking that his dad is the father. And you know what? I am not going to stand for it anymore. Meanwhile, by the way, Tyrone was not able to make the show. I can understand why. hadda barnaamijkii saxda bilaabanayo waxa imaanaysa meesha gabadha dacwada fidinaysay gabadha dhibanada ahayd waxa imaanaya Tyrone waxa imaanayo Denise waxa imaanaysa Denise iyo Rashiki. Tyrone waa aabaha familka Rashiki aabihiisa Denise waa hooyadiisi iyo aabihiisi iyo asigii isla socdaan barnaamijka laga soo qayb galay laakiin aabiga cudur daaro sameystay
wuxuu dhahay kama soo qayb gali kari laakiin fariin ayaa idin soo diri doonaa oo ku saabsan gabadhan waxay ka hadlayso in aniga arrintaas bari aan ka ahay waxba aan sameyn ku soo But he did give a statement to my producers, and here's what he said. Brianna is lying. I never had sex with her. Not even once. It's impossible for me to be the father of those twins. Brianna, you were asked... aabihii fariin uu soo diray fariintaas wuxuu ugu soo dhiibay ii sheeg ninka daadihinaya showga barnaamijka fariintaas oo ah wuxuu dhahay Brianna gabadha had aan dacoonayso ee leedahay ninkaasi uu ila jiiftay wuxuu leeyahay gabadhaas ma la jiifanin bataatanba kaaga sii daran xitaa hal mar lama jiifan uu dhahay mid kale awlaadee dhashay ama labada caruur oo mataamaha ah caruurteedii ma noqon karaan warkiis wuu cad yahay Did you have sexual intercourse with Tyrone? You said yes. The lie detector test determined you're telling the truth. Thank you. Oh God, I told you. Thank you. Oh wow. You were asked, did you initiate? duq beentiis waa laga daba tagay duq wuxuu taagnaa gabadhan lama jiifan wax sexy lama sameyn laakiin waa la soo cadeeyay jawaabtu waxay noqotay inuu odaygii weynaa gabadhii la jiiftay ilaa hadalkii gabadhi sheegaysay ayaa xaqiiq noqday okay let me see Initiate having sex with Tyrone. You said no. The lie detector test determined you're telling the truth. Oh my God. Oh wow. You were asked, did Tyrone initiate having sex with you? You said yes. The lie detector test determined you're telling the truth. You shouldn't have never done it. It don't matter. You should have kept stuff. duq wuxuu sheeganaya dhan waaba ka kacba intii goor oo qoftan oo la jiiftay waa la soo cadeeyay xariifkii odayga ahaa way ku cadaatay that's why showgu marweyn oo ka soo qayb galo kulay hadda showgu waxa fadhiyaan wiilka iyo hooyadiisa hawartu ayaa banta afka gacanta saaran odaygii guriga waa waxaan sameeyay alxamdulillah ala ni'mat alislam alxamdulillah I'm more interested in who the father of these twins is. ciyaarta hadday macaan tahay ciyaarta hadday kala kacsan tahay sababtoo waxaa la soo qaaday DNA testiga labada caruur ee mataamaha ah aabbahooda dhabta ah la ogaan doonaa ma boyfriendkeeda dhalay mise aabbihiisa dhalay let's do it Here we go. When it comes to 4-month-old Nehemiah, Tyrone is not the father. DNA testiga wuxuu sheegay wiilka aabbihiisa inuusan dhalin Tyrone ninka lagu magacaabo inuusan dhalin cunuga laakiin uu la jiiftay laakiin cunugan shaqo kuma laha okay When it comes to 4-month-old Nehemiah, Rashiki, you are the father. xariifkii is xariifinaya hortiis hoosta ka soo galay waxaa la dhahay cunugan adaa iskale eebo cabdi aabbahaa ma dhalin adaa dhashay gabaru aabbahaa la jiiftay adigana caruura kuu dhasha subxaan allah walciyaadu billah haye aan kusii soco Sit down. Sit down. I denied him. Get that stank holding kid. When it comes to 4-month-old Zakaya, Tyrone is not the father. cunuga labaad waxaa la dhahay Tyrone adiga ma dhalin Tyrone waa aabbihii Rikishi qoftan boyfriendkeeda aabbihiisi waxaa la dhahay adiga ma dhalin kolleeyaa dhali doono boyfriendkeeda xariifka meesha fadhiya
ده كفوركي سويجا حمو قرد وين When it comes to 4-month-old Sakaya Rashiki, you are the father. حريف كان عرورتي ودن أما علمي ودن أسيكو عدادة إنه ضل bullshit الحمد لله على نعمة الإسلام والله بالله إسلامي ماذا وحوين برنامج كنا انت سوكيكي هاي اخيار شرفت لو كما سنتي سيده قروحده بدن aa u daawateen hadii aad ka hesheen fadlan like noo saar hadii idin soo badinayo oo taxana idin kaga dhigayo sidii musalsal ahaan sidii musalsal oo kale oo idin soo deynaa insha Allah commentiga waa dhankiina waa walaalkina Fataax Abdullah al-Cadaal oo idin leh assalamu alaykum